بسم الله الرحمن الرحيم هبه wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Soomaalida ay caawa qodobada ugu waaweyn waxa kamid ah Somaliland oo caawa bandow ka bilowday ku soo rogtay magaalada Ceeri Gaabo maxay tahay ujeedada ka dambeysay go'aankan warbixin ayaanu idin kaga haynaa Puntland oo sheegtay in ciidamadeeda qarka u saaran yihiin in ay ku dhawaaqaan dhamaadka dagaalka buraha calmiskaad tahriibayaal ay Soomaali kamid yihiin oo ku dhintay xeebaha Talyaaniga iyo ciidamada Liibiya oo badbaadiyay muwaadiniin kale oo gacanta ugu jiray kooxo burcada maxaan kala soconaa liiska golaha wasiirada cusub ee waqooyi bari oo ay ka soo muuqdeen xubno Puntland kamid ahaan jiray dhammaan wararkan oo faahfaahsan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wararka caawa ee Soomaalida dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool qurbaha ee danaynaya barashada culuumta shariicada islaamka qaybaheeda kala duwan waxa loogu bishaaraynayaa in macadka Ibn Abbas uu soo kordhiyay qayb cusub oo online ah waxaana kamid ah culuumta shariicada oo ilaa 6 qaybood ah barashada af Soomaaliga iyo Carabiga quraanka kariimka dadka waaweyn iyo caruurtaba ka sixidda carabka ruuxa dhigtay hadda koor higaada Carabiga oo ilmaha si fiican loo fahamsiin doono insha Allah iyo culuumta kale ee quraanka haddii aad degan tahay magaalada Nairobi macadku waxa uu diyaar idin leeyahay macallimiin guriga kuugu iman karta faahfaahin dheeriya la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqda markale soo dhawaada daawadayaal wararkana waxaan ku bilaabi doonaa xukuumadda Somaliland ayaa caawa ku dhawaaqday xukun ka bilaabanaya amaba bandow ka bilaabanaya caawa kaasi oo laga dhaqan galiyay magaalada Ceeri Gaabo iyada oo la joojiyo isku socodka gaadiidka gudaha magaalada ee laga bilaabo 6 fiidnimo ee caawa gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Somaliland Axmed Cabdi Muuse ayaa waxa uu sheegay in bandowgu uu socon doono ilaa amar dambe isla markaasina uu gaarayo in ka badan 48 saacadood waxa uu dadka leh gaadiidka ku amray in ay baabuurtooda dhigtaan meelaha munaasabka ah maadaama aan la ogolaan doonin dhaqdhaqaaqa habeenkii waxaan bulshada gobolka u sheegaynaa laga bilaabo 6 fiidnimo caaw inaan la arki karin dhaqdhaqaaqa gaadiidka ee guud ahaan degmada Ceeri Gaabo khaasatan magaalada Ceeri Gaabo waxaan bulshada u faahfaahin lahaa wadooyinka baarkimada wadooyinka dhexdiisa inaan lagu arki karin oo baarkimada gawaadhida geedadka iyo lagu xareysan doono guryaha u gaarka ah cid waliba laakiin gaari suuqa ku dhex baarkin gareysan ama wadooyinka ku dhex baarkin gareysan inaan la arki karin waxa reeban oo guud ahaan timeka ay bilaabmaysaa waa 6 ilaa iyo amar dambana baritoole sideedu u socon doontaa hadii la haydmo saa dambe way sii socon doontaa ilaa amar dambe hay-adaha ammaanka Somaliland ayaa ku booriyay ciidamada kala duwan in ay fuliyaan go'aankan lana dhaqan geliyo go'aankan ayaa waxa uu ku soo beegmaya xilli la filayo in madaxweynaha Somaliland uu safar ku tago magaalada Ceeri Gaabo taasi oo keentay in la adkeeyo amniga guud iyo wadooyinka waaweyn ee magaalada Ceeri Gaabo saraakiisha ammaanku waxay sidoo kale shacabka ay ugu baaqeen in ay u hoggaansanaadaan amarka cusub ee soo baxay iyada oo tilmaamay in talaabadani ay tahay mid ku meel gaar ah oo lagu sugayo xasiloonida Ceeri Gaabo inta lagu guda jiro booqashada madaxweynaha ee gobolka si weyn looga dareemayo gobolkaasi Sanaag iyo deegaanada Somaliland markana Puntland waxa ay xukuumadeedu ay sheegtay in ciidamadeedu qarka ay u saaran yihiin in ay ku dhawaaqaan dhamaadka dagaalka ka socda buraha calmiskaad ku dhawaad muddo sanada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ku sugnaa maantay magaalada Carmo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha amni iyo siyaasadeed ee maamulka isaga oo si gaar ah u dul istaagay dagaalka ay kula jiraan kooxaha loogu yeero argagixisada gaar ahaan kooxda Daesh madaxweynaha Puntland Saciid Dani waxa uu sheegay in argagixisadu waa sidoo hadalka u dhigay ay qatar weyn ku yihiin jiritaanka Puntland iyo guud ahaan Soomaaliya kadib markii uu ku eedeeyay in ay abuureen amni darro baad cabsi iyo kala shaki ay bulshada ka dhex dhigeen waxa uu xusay in Puntland ay si weyn u weeqday awoodda Daesh kadib markii howlgalla isdaba jooga lagu dilay laguna qabtay xubno badan oo ka tirsanaa kooxda iyadoo sidoo kale la burburiyay goobo muhiim ah oo ay lahaayeen iyo hubkoodii oo la baabiyay Saciidana waxa uu shaaciyay in ciidamada Puntland ay ku dhow yihiin in ay ku dhawaaqaan in la soo afjaray dagaalkii ka socday buraha calmiskaad halkaasi oo muddo sanad ku dhow uu ka socdo dagaal adag oo lala galay kooxda Daesh waxa uu intaas ku daray in qorshaha xiga uu noqon doono in la wajaho buraha calmadow si gabi ahaanba loola wareego lagana la wareego kooxda
marxalad adag baynu maraynaa dal Soomaaliyeed baynu dhisaynaa oon ka bilaabaynaa Puntland inay siday u tahay hooyada Soomaaliya isbeddelka Soomaaliya loo rajaynayo Puntland ayaa madaxdii naga horeysay ee garowsatay oo go'aansatay inay Puntland ay noqoto meesha ubuucda u ah nidaamka cusub ee dalka Soomaaliya haddana nala gartay markii dambe markaan 98 waxay nala garteen 2004 6 sano kadib ayaa dadka Soomaaliyeed waxay nala garteen in dawlad federaal loo baahay Puntland waxay ku dhisan tahay nidaam federaali ah oo saldhig ah nidaamka federaaliga waa midka aan rajaynayno Soomaali dib dambe inaysan u burburin Soomaali dib dambe inaysan isu buuran inaysan isu baahan in degaan walba dadka markaa jooga ay ku noolaadaan isla maamulaan macnaha federaalku waa intaas macna kale oo xabaarsiya male marka haddaan niraahno dawlad federaal aan nahay adawaadkii ama aaliya wixii lagu qaban lahaa dawladnimada iyo federaalkana ay noo dhisneen ma macnaan yeelanaynaa macno yeelanayna isagoo hadalka sii watay madaxweyne Deni waxa uu si adag u sheegay in aan cidna laga ogolaan doonin in ay hubka ay ku dhex qaadato deegaanada Puntland waxaana uu adkeeyay in hadafkooda koobaad uu yahay in lala dagaalamo cid kasta oo hubeysan oo ka soo horjeeda jiritaanka maamulka Puntland markaana tahriibayaal ay Soomaali ka mid yihiin ayaa waxa ay ku dhinteen xeebaha dalka Talyaaniga iyadoo dhanka kalena ay soo baxayaan in ciidamada dalka Liibiya ay soo badbaadiyeen muwaadiniin Soomaaliyeed oo gacanta ugu jiray kooxo burcadaha dooni tahriibayaal ah oo ay la socdeen ku dhawaad 35 qof oo ka soo sharaacatay Liibiya ayaa ku degtay bartamaha badda Mediterranean-ka waxaana la xaqiijiyay in mid kamid ah uu ku dhintay laba kalena la la'yahay sida uu sheegay isku dugaha wakiilka UNICEF ee dalka Talyaaniga Nicola del Arciprete waxa ciidamada ilaalada ee badda ee Talyaanigu ay fuliyeen howlgal samata bixina jimcihii si ku meel gaar ah looga fuliyay jasiiradda Lampedusa iyaga oo badbaadiyay 11 muhaajiriin ah oo ay ku jireen 4 caruur ah oo aan la socon waalidkooda isla markaasina soo saaray sidoo kale meydka haweeney uur lahayd oo laga soo saaray badda UNICEF waxa ay sheegtay in dadka la badbaadiyay iyo meydka haweeneyda la geeyay Lampedusa halkaasi oo dadka kalena ay saarnaayeen doon aan ilaa hadda la ogeyn UNICEF ayaa sheegtay in dadka la badbaadiyay iyo meydka haweeneyda la geeyay Lampedusa halka dad kale oo saarnaa dooni aan ilaa hadda la helinin warbaahinta ayaa waxa ay tilmaamaysaa ka soo baxday UNICEF warbixintooda ayaa waxay tilmaamaysaa in doonta ay rugmatay kadib markii 2 maalmood ay ku jirtay badda sida uu sheegay Nicolas waxa dhanka kale soo baxaya dhacdooyin kale oo arrimahan la xiriira iyada oo dhacdadan ay ku soo beegmayso xilli xadii 2 muhaajiriin ah laga helay meydkooda badda halka 14 kalena ay xaalad halis ay ku jiraan kadib markii ciidamada canshuuraha Talyaanigu ay qabteen dooni kale oo 88 muhaajiriin ah oo u kala dhashay Pakistan, Eritrea iyo Soomaaliya sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AGI badda u dhow Lampedusa ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay noqotay goob ay ka dhacayeen silsilado shilal isdaba joog ah oo muhaajiriin la xiriirta kaliya maalintii Jimcaha ayaa la soo sheegay in ku dhawaad 20 qof ay ku maqan yihiin badda kadib markii dooni kale ay ku degtay halkaasi sida laga soo xigtay xogta qaramada midoobay in ka badan 32,700 muhaajiriin ayaa ku dhintay isku daygooda ah in ay ka gudbaan badda Mediterranean-ka tan iyo 2014 kuwaasi oo ku dhow 5 meelood meel caruur ay ahaayeen dadkaasi sida la sheegay sida uu sheegay sargaalka UNICEF oo hadlay dhanka kalena ciidamada gaarka ah ee 444 ee dalka Liibiya ayaa ku guuleystay howlgal samata bixin ah oo lagu soo badbaadiyay 23 muwaadiniin Soomaaliyeed ah oo 13 dumar ay yihiin 10 kalena ay rag yihiin oo iskugu jiray kuwaasi oo la sheegay in si sharci darro ah loogu haystay xarun ay gacanta ay ku hayeen koox burcada war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalkan lagu fuliyay kadib markii la helay xogta sirdoon oo tilmaamaysay halka lagu hayo muwaadiniintaasi xogta ayaa lagu hayay dadka waxaana lagu sheegay inay tahay goob ay isticmaasho
koox burcad ah oo ajnabi ah kuwaasi oo ku howlanaa falal la xiriira afduubka iyo dhibaataynta dadka. intii lagu guda jiray howlgalkaasi ciidamadu waxa ay gacanta ay ku soo dhigeen 5 qof oo ka tirsanaa kooxda burcad ahayd kuwaasi oo dhammaantooda haystay dhalashada sida hadalka loo dhigay Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay in ay mas'uul ka ahaayeen afduubka iyo cabsigelinta qoysaska dadka la afduubtay iyaga oo lacago madax furasho ah uga dalbanayay si ay u soo daayaan dadkooda. ciidamada 444aad ayaa waxa ay sheegeen in dadka la badbaadiyay loo gudbiyay xarun caafimaad si loo siiyo daryeel caafimaad kadib tacadiyadii ay la kulmeen. ugu dambeyntiina madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada cusub kuwaasi oo ka kooban 21 xubnood sida lagu sheegay wareegtada ka soo baxday xafiiskiisa. golaha wasiirada cusub ayaa ah mid ay ku jiraan hal haweeney ah iyo xubno horey uga tirsanaa maamulka Puntland kuwaasi oo hadda ku jira ama ku soo biiray maamulka waqooyi bari. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in magacaabistu ay tahay mid lagu dhisayo xukuumad midaysan oo ka turjumaysa baahida bulshada iyo sidoo kale dardargelinta howlaha horyaala maamulkiisa. sidoo kale madaxweyne Firdhiye ayaa dib u soo celiyay qaar ka mid ah wasiiradiisii hore ee maamulkii SSC Khartoum isagoo sheegay in la doonayo in la helo xukuumad isku dhafan oo waafaqsan danaha guud ee bulshada waqooyi bari. weli lama magacaabin wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowlayaasha maamulka, waxaana la filayaa in lagu dhawaaqo waqtiyada soo socda. ka hor magacaabista madaxweyne Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa Cabdirashiid Awaan ayaa isku khilaafay saami qaybsiga golaha wasiirada, hase yeeshee markii dambe ayaa xal laga gaaray. waxaa lagu wadaa in lagu dhiirigeliyo ama lagu dhaariyo xubnahaasi waqtiyada soo socda baarlamaanka kulankiisa uu yeelan doono ee waqooyi bari, iyada oo sidoo kalena ay meel marin doonaan golaha wasiirada. magacyada wasiirada waxaad kala socon kartaa ama ka akhrisan kartaa bogga internetka aan ku leenahay hbnonlinetv.com iyo sidoo kale shaashadaba. wararkeena intaas ayay ku dhan yihiin saaxiibayaal. waxaad kala socon kartaan wararkeena boggeena kala duwan Facebook, YouTube, X, Twitter iyo Telegram. intaan ku kulmi doono wararkan kuwa kan xiga, sidaas iyo nabadgelyo. bishaaro ma doonaysaa in waalidkaaga oo dhintay ama geeriyooday ama xanuunsan oo sariiryaal ah in lagaaga cumreeyo inta lagu guda jiro bilaha xurmada leh? wax ka yar $300 ayaa lagaaga cumreynayaa waalidkaaga, waxaana fursaddan qaaliga ku siinaysaa shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa oo kuu samaysay qiimo dhimistan ballaaran. waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cimradu u dhacday, waxaana shaqadan qabanaya culimo aqoon u leh. haddaba si aad uga faa'iidaysato fursaddan qaaliga ah, la soo xiriir shirkadda xajka iyo cumrada ee Taqwa Taqwa Xajan Cumra adigoo kala soo xiriiraya telefoonada iyo ciwaanada shaashadda kaga muuqda. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.